haddii Room aan lagu dhisin hal maalin, weligeed laguma dhisin hal nin. Taariikh kasta oo weyn ma aha mid hal qof leeyahay, ee waa mid dad badan ay wada dhiseen. Dad badan waxay maqleen qisadii Romulus iyo Remus, laakiin waxaa jirta run kale oo qarsoon. Run aan run ahaantii lagu dhigin taariikh lagu dhigin dugsiyada, oo qodis dhulka ah iyo cilmiga arkeolojigu oo run ahaantii oo keenay. Maanta waxaan run ahaantii ii soo bandhigi doonaa taariikhda dhabta ah ee dhalashada Rome, magaalo aan hal maalin lagu dhisin, isla markaana aan ka iman hal qabiil oo keliya. Roma waa natiijada isku darka dad badan, dhaqamo kala duwan iyo awood cusub oo soo baxday. Haddaba ku soo dhawaada Gofara Podcast, magacayguna waa Ciid. Qaybta ugu horeysa ee mawduuceena Romulus iyo Remus, halyeey balse ma aha xaqiiqo. Romulus iyo Remus waa halyeey caan ah, laakiin cilmi baarista casriga ah waxa ay tilmaamaysaa in ay sooyaalka Rome ay u run ahaantii aad ugu duwan tahay arrintaasi. Marka loo eego sooyaalka Rome way ka duwan tahay wixii la qoday waxay sheegaan. Qisadani waxay ahayd qaab ay Roomaanku u abuureen astaan iyo sharciyo siyaasadeed wakhtiga. Haddaba haddaan isla fahanay, arkeolojigu wuxuu muujinayaa in Etruskiintii ay ahaayeen kuwii dhabta ahaa ee dhisay nidaamka boqortooyada, dhismayaasha hore iyo xataa farsamada qoraalka. Wax badan oo ay Roma leedahay waxay run ahaantii ay ka yimaadeen run ahaantii. Haddaba qisadani waxay run ahaantii beddelaysaa waxa aan hore run ahaantii aan laga filaynin. Haddaba Saabiniyiintii waxay Roma run ahaantii ku dareemeen waxyaabo badan. Waxay ku soo dareen nidaamka bulshada, caadooyinka guurka, iyo waxay ku soo dareen wakhtiga xiriirka u dhexeeya qabiilooyinka. Warbaahinta run ahaantii cusub waxay muujinaysaa in Roma aysan ka dhalan hal koox, balse ay tahay isku darka waxyaabo kala duwan. Haddaba haddaan intaas la fahanay, maxaa lagu ogaaday qodista dhulka? Markii dhulka la qoday, cilmiga loo yaqaan arkeolojiga dhulka loo qoday, maxaa laga helay? Cilmi baarista ugu dambeeyey waxay daaha run ahaantii ka qaaday magaaladii hore ee Rome. Waxay run ahaantii koobnayd tuulooyin kala duwan oo isku yimid. Boqortooyo hore waxay run ahaantii maamuleen dad kala duwan, jinsiye kala duwan. Dhaqanka Roma wuxuu ahaa iskaashi qabiil ee ma ahayn hal qiso oo keliya. Arrintaa waxay tusinaysaa in Roma ay ahayd mashruuc isku soo ururay oo muddo dheer ah. Haddaba maxaa ka baran karnaa maanta taariikhdan sooyaalka ay leedahay Roma? Taariikhda Roma waxaa in laga barta mudan awoodda runta ah ee aysan run ahaantii ka dhalan hal qof, balse hal qabiilna ay ka dhalan. Run ahaantii awoodda dhabtu waxay ka timaadaa isdhexgalka, wadajirka, xiritaanka aragti cusub. Sooyaalkani wuxuu xasuusin run ahaantii guushii weyneed ee lagu dhisay run ahaantii wuxuu tusinayaa sooyaalkan Roma in guusha weyn lagu dhiso sabir, isku dar, aqoon badan. Haddaba waxaan soo gaarnay mawduuceennii gunaanadkeenii. Marka aad hadda run ahaantii ogaatay dhalashada Roma, ma aha halyeey keliya oo run ahaantii loo meeriyey jiilal badan, waa arrin dhab ah oo run ahaantii ka dhalatay dad kala duwan, dhaqamo badan iyo wakhtiyo isku keeneen. Haddaba xusuusnimo mudane iyo marow,
taariikh kaste oo weyn ma aha mid hal qof leeyahay ee waa mid dad badan wada dhiseen. Waad mahadsantihiin.